كور قبطان ربيع لبعتنكي بيش سبتمبر سنة في لبكرم يلبعتنكي 3 سنوات كان كوجوك أساس كسلطة وكجوك تقرده المدن دارتيو عاوة ومركلة سد ديمقراطية كجوتو دور يفرنقين سبعتين دور وطبعا كدي لابد دورتين ودور العصر ومقعيدو دلوان إيجي شيء دورو dhammaan diasporada galmudug ama ururada ku midoobay ee galmudug ee gadan waxaan ku faraxsanahay maanta dood adag iyo yani sidaan ku horumarin lahay galmudug iyo doorasho dimuqraadiyad ah oo yani si fiican loo wada hadlay yani in maanta lagu soo gabagabay saddex yani ismihii loo socday inuu maanta guud noogu soo dhammaaday runtii yani ururada ka dhisan yurub oo ku midoobay daladan waxaa la aasaasay markii ugu horreysay 2019 waxaa ilaahay loo suurtageliyey 3 sano ka bacdi inaan maanta haddana aan yani doorasho dimuqraadi ah oo ka dhacday halkan magaaladan kema antalya ee waddanka turkiga inaan ku doorano walaalkeen xuseen qadiib keligiis maaha isaga iyo dhammaan xubnaha kale gudoomiye ku-xigeenka iyo odayaasha gadan xuseen waxaan ku leeyahay marka ugu horreysa waa kaaga mahadcelinayaa maanta doorashada ugu doortay inaad noqoto gudoomiyaha gadan waxaanu ku leeyahay ilaahay kula garab galo xilkaasi waxaanu kaa rajeynayaa inaad ka soo dhalaali doonto dhammaan balqaadyadii aad guddiga hortooda ka cadaysay xuseen ma aha inaan intaa u dhiibno dhagadurwa aan uga hadno xuseen waxaan kula garab taaganahay naf iyo maal xoog iyo xalig waxaan hayno oo kugu taageeraynaa waana kula shaqaynaynaa si dhow iyo si dheer baa biidni illaahi kariim guddigii hore iyo kan cusub intaba waxaan ka rabaa inaan halkan arrin wax yar raaciyo waxaan halkan uga mahadcelinayaa dallada guud ee Puntland diaspora oo si dhow iyo si dheer ku noo garab istaagtay waxaan rabaa weliba inaan si qaas ugu mahadceliyo gudoomiyaha dallada joogta Puntland diaspora Cabdifataax Cabdullaahi Jaamac Janna Gale حسين داهر إبراهيم محمد مضر عبد الرزاق عمر إسماعيل شيخ الديو سوى الأحسن أي نوصل قرب استاجين هذا ما زنتين حكم إلى هاي مامور عصف دبلو دورتي دلار جيدا وحن أدو فرح سنة هاي قبل حفلة قيمة بدن يعني كسو قبليني شرف مالوي بدن بينو السعودي oo aanu ku falanqaynaynay sidii mar kale aanu u dooran lahayn maamul cusub ee haga dallada geedan waxaan fadlan leeyahay in halkaa ka sii wada dowladda galmudug ay garab taagan tahay wax walba uga baahataan bay dala fududaynaysaa ilaa iyo duiraado adigana dadkeeda waxaa laydinka sugayaa mashaariic horumarineed iyo inaad dadkii dib ugu soo laabataan oo dhisataan oo aad mataqaanaa hormarisaan waxa ugu yara laydinka sugayaa waxa weye magaalooyinka galmudug iyo magaalooyinka aad degantihiin inaad mataanaysaan sidaad magaalooyin badan loo mataaneeyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda halkaan iskugu timid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aad waqtigii qaaliga ahayd siisaan waxaan si qaas ah ugu mahadcelinayaa ilaahi subxaana watacaala kasoo dhammaan dhalinyaradii reer galmudug oo shirkaan caawa soo qaban qaadisay oo sida quruxda badan u soo hartay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa walaalayaal waxaa maalmahan aan u wada fadhinay aan isweydiinaynay oo aan kala war qaadanaynay waxa aynu annaga rabnaa haddii aan nahay reer galmudug maxaan damacsanahay xaggee rabnaa inaan gaarno dood badan kadib go-aamo ayaa la isla qaatay oo aan ku dhaqmi doono hadduu allah subxaana watacaala nafta nu gaarsiiy 4 sano soo socto oo ah mandatekana la siiyey guddigeena cusub waxaan si qaas ugu mahadcelinayaa gudoomiyahaygi hore nin oday ah oo wax badan ka soo qabtay sidii galmudug diaspora u istaagi lahayd walaalkeen faarax
عادي هذا ما صنعه إلهي أدري حسنا ذكاسيه هذه عاوة مسؤولية كاوي ترى معناه هذا معها أنا أقول عافية دون قفا وقفتي ما يسوي على الرأس بيسوي هذا هذه أنا أمر سنتين waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo shirkan lagu dooranayo guddiga cusub iyo gudoomiyaha cusub lagu doortay galmudug geedan waxaan hambalyo halkan uga dirayaa walaalkeen gudoomiyaha cusub xuseen waxaan ku leeyahay insha allah ilaahay xilkan cusub ilaahay garab galo ومسؤوليات وين إن شاء الله كسبت القنطار إن شاء الله إلهي هكوف ودايو هذه أدبان الذي وصل على غير كلمة يا الله عاوي فرق